بسم الله. biyaha qantaca oo la cabo waxay leeyihiin faa'iidooyin aad u badan. Waxaan ku soo koobaynaa 10 qodob. Qodobka koowaad, dheefshiidka. biyaha qantaca oo subaxii hore la cabo waxay dheefshiidka ka nadiifiyaan wasakhda una diyaariyaan inuu quraacda si habsami leh u shidinto. Qodobka labaad, calool fadhiga. biyaha qantaca waxay caawiyaan mindhicirada si ay saxarada u soo baxdo, taasoo yareyso calool adeeg. Qodobka saddexaad, xanuunka. biyaha qantaca oo la cabo waxay yareeyaan madax xanuunka dumarka ee dareemaan xilliga caadada, sababtuna waana biyaha ay xididada u waasiciyaan markii biyaha la cabo, taasina oo dabcisa murqaha kogsan madaxa iyo dhabarka. Qodobka afaraad, miisaanka. biyaha qantaca waxay xakameeyaan culeyska qofka haddii lagu darsado liintan ay kordhiyaan fursadaha miisaanka lagu yareyn karo. Qodobka shanaad, wareegga dhiigga. biyaha qantaca oo la cabo waxay firfircooni u yeelaan wareegga dhiigga, waana arrin aad u muhiimsan xagga caafimaadka jirka. Qodobka lixaad, caafimaadka timaha. biyaha qantaca oo la joogteeyo waxay kordhiyaan dhaldhalaalka timaha waxayna ka hortagaan agoolka. Qodobka toddobaad, maqaarka. biyaha qantaca oo la cabo waxay isbeddel ku sameeyaan unugyada maqaarka, waxayna yareeyaan nabarrada findoobka ah wejiga ka soo baxa, sida cilmi baaristu sheegtay. Qodobka siddeedaad, cunaha iyo sanka. caburka sanka iyo dhuunta waxaa looga hortagaa in subax kasta oo biyo qantaca la cabo, waliba markii lagu darsado liinaanta, ay faa'iidooyin badan ayay leedahay. Qodobka sagaalaad, hurdada. dadka badanaa dhibka kala kulma inay hurdaan dhaqso waxaa laga doonayaa inay cabaan cashada kadib marka ay seexanayaan. Qodobka tobanaad, caabuqa. biyaha markii la kululeeyo oo la qantaciyo waxay yareeyaan fursadaha jeermiska biyaha ku qaadi karaan, maxaa yeelay biyaha markii la kululeeyo waxaa ka dhimanaya jeermiska. talooyin ku saabsan biyaha kulul. iska ilaali inaad cabtid biyo aad u kulul, maxaa yeelay dhuunta iyo jidinka uma roona. haddii aad rabto inaad u cabtid biyaha inaad miisaan iska ridid, waa inaad ku darsataa liinta si faa'iidooyinku u kordhaan.